qoysaskani Sansibaariyiinta ee ku nool wakaaladii biyaha ee dawladda dhexe ayaa maanta iyagoo saxaafadda la hadla waxa ay sheegeen in lagu amray muddo 6 saacadood gudahooda inay isaga guuraan xaruntii wakaaladda biyaha ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha qoysaska Sansibaariyiinta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, Salim Maxamed, oo la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in arinta ay dawladdu u soo jeedisay ee ah inay isaga baxaan xarunta wakaaladii biyaha ay tahay mid wanaagsan, balse aysan haysan haddii ay isaga baxaan xaruntii wakaaladda biyaha meel kale oo ay u ciirsadaan. Wuxuu sheegay Salim Maxamed in muddo 11 sano ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho isla markaana ay xirfado kala duwan ka sameysteen caasimadda. Gudoomiyaha qoysaska Sansibaariyiinta ee ku nool magaalada Muqdisho, Salim Maxamed, ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka codsanayaan maadaama ay ku amartay inay isaga baxaan wakaaladii biyaha inay u sameyso dib u dejin. My name is Salim Ahmad, one of the Zanzibari communities. We have been here for 11 years, included men, women, and children. We requested all the Somali people. Since in our presence here for 11 years, we are requested Somalis people to be patient with us and to find us a good place to survive because we are foreigners from other countries. We have nowhere to go. As we know that all the government buildings are needed to be working for the government, and all the civilian citizens are allowed to get out of this building. So we need the Somali people to help us to find us a good place to stay. qaar ka mid ah dadka ku nool wakaaladii biyaha oo warbaahinta la hadla ayaa iyana dhankooda waxay sheegeen inay yihiin dad aad u danyar oo aan haysan meel ay hoy ka dhigtaan isla markaana ay muddo ku noolaayeen wakaaladii biyaha ee Muqdisho iyagoo codsi u diray dawladda Soomaaliya. Abdi shalay ma imaadeen oo dadka gudbinay marka dadkii guuray dhahan anagana kulay gudniina iska qabnay marka hadda ma imaadeen marka ay soo noqdeen saarkii waxay dhahan 6 saac ayay qabnay subax guuray هذا أقول حسنا والله أنا في ميلا ميلا أنا مكلاسيسون متوحى بس أنا بقول على هاي أقول حريرة ميل أدلين أنا ملك دولة الصومالية أنا حتى عشان أنا أكتب من السؤال كل ميل أقسم ميل جارنا أنا سيسو. سبحان بركة عياش أنا سقطت سنسبتها ميل أنا أبدا أدلنا منقان دولة كملجات وحكوا عشان سيدنا بدنا يجوابوا عين نوسيسو أو نفسدنا وهو يعرفنا كمارين أنت سوكلان وجرو مركا أنت سجارسينا دولة. hali hapa tunakwenda kama mnavyoona sasa ndugu zangu wanavunja mkasi na sisi hapa zetu tunaonekana kama tutapata ndoto kuhama kama mlivyokuwa lakini sasa tunajua tuna sehemu ya kwenda. Tunashukuru lakini Somali wote kwa tulipokuja hapa kusema kweli tumechukua ni mtihani kiasi fulani na mpaka sasa bado hatujafikia kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi tumeamua tutafute nyumba tumekosa. Kwa maana hiyo na wenzetu wako na haraka zao hapa wanataka mara moja tuhame lakini mpaka sasa imeshindikana kwa hiyo tunasubiri jawabu zaidi. Asalamu alaykum. Khaliif Ahmed Ereg, taliyaha hay'adda nabad sugidda maamulka gobolka Banaadir oo gudaha wakaaladii biyaha warbaahinta kula hadlay ayaa wuxuu sheegay in dadkaasi ay dib u dejin u sameynayaan. Wuxuu been abuur ku tilmaamay Khaliif Ahmed Ereg, taliyaha hay'adda nabad sugidda, in dadkaasi Sansibaariyiinta ah ee lagu amray inay isaga guuraan wakaaladii biyaha aan la soo wargelin, isagoo hoosta ka xariiqay in dadkaasi horey loo soo wargeliyay balse uu waqtigii ka idlaaday sida uu sheegay. hay'adaha idaha tacliinta sare qorsheynta qaranka iyo wakaaladda biyaha dhammaantood waxay noqdeen goobo soo gacan galay dawladda isla mar ahaantaasna wasiiradii iska lahaa lagu wareejinayo oo ay ka dhammaadeen dadkii ku jiray waxayna fahmeen oo ogaadeen inay tahay meel dawladeed waxayna ku soo wareejiyeen dawladda gacanta dadkaas xarumo loogu talagalay baa la keenay qofna la dayici maayo dawladdu waxay ugu talagashay ciddii dan yar oo ganacsi ama ha noqoto dad qaxooti ah labadaba ciddii ganacsanaysa oo dan yar ah waxa la dejinaya gobolka Banaadir baa xarumo siinaya suuqyada waaweyn oo kala laga siinaya ciddii qaxootiga oo aan waxba haysanna sidoo kale iyagana waxa la geyn doonaa goobihii loogu talagalay cidna la dadka ajnabiga oo qaxootiga isla iyagana meel loogu talagalay baa jira taliya waxay sheegeen in muddo 6 saac kadib gacanta la tagi doona haddaysan guurin
warkaas maxaa ka jira maya cidna gacanta loola tegi maayo dadweynuhu ayagaa raalli ah ayadaa qorshaha nala wada ayagaa nala shaqaynaya annaguna insha allah waxaan ku dadaalaynaa inaan dib u dejin fiican iyo meel wanaagsan ciddii dan yar aan geynin haddii la hayay waa la soo wargeliyey muddadii waqtigiina waa dhammaaday waqti horun ahaa 2-3 jeer baa la wargeliyey cabashada qoysaskani Sansibaariyiinta ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dawladda Soomaaliya ay maalmo ka hor bilowday howlgallo ay dib uga saarayso dadka ku dhaqan xarumihii dawladda dhexe ee ku yaala magaalada Muqdisho. Harun Yusuf Maxamed, Idaacadda Risaala, magaalada Muqdisho.